Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Isku soo noqosho dambe iyo kulan dambe oo xiiso leh. Toddobaadkii noogu dambeeyay cashirkeenu wixii noogu soo joogay ama cashirkeenii noogu dambeeyay wixii noogu joogay receptor mediator endocytosis halkaas oo kasii anba qaadanay ama isku ogeyn. Wanagii soo aragnay saddexdii habee oo kala gaadiidoobayeen ashyayaha waaweyn anaga saddexdii soo kala qaybinay exocytosis markaan joognay exocytosis and endocytosis anaga saddex kala qaybin jirnay phagocytosis, pinocytosis iyo receptor mediated endocytosis. Markaas pinocytosis iyo phagocytosis labadaba soo qaadanay. Receptor mediated endocytosis baan toddobaadkii hore qaybta hore ka galnay. Haddaan bal cashirkeena maanta khuseeyo qaybtiisa hore receptor mediated endocytosis haddaynu wax iska soo celino bal wuxuu ahaa receptor mediated endocytosis waxaa loo isticmaalaya transport substance waxyaabaha insulinta oo kale, hormoneska oo kale, enzymeska iyo lipoproteinska ashyayaha waaweyn ayaa lagu kala gaadiidiyay marka la joogo receptor maadaama waxa la joogaa waa receptor soo moosan toddobaadkii hore soo aragnay. wax receptor jirkeenu receptor fara badan buu leeyahay anaga lahayn receptor-ka looga baahan yahay in receptorada kalena ay yeeshaan. Haddaynu ka socono the process-kan wuxuu noqonayaa mid waa highly specific receptor mediator buu noqonayaa. Hadda jirkeena waxa muhiim in meesha receptor yaalo Soomaa haddii meesha receptor yaalo receptor-kaasi wuxuu noqonayaa mid isagu markaa soo qabsanaya waxyaabihii kale hormoneska ama enzymeska waxyaabihii kale. Waxa lagu yiri post-radical receptors inside the cell liganka yar ama ashyayaha yar ee qabsanaya liganka wixii ka yimid dibadda Soomaaliya ligankaasi wuxuu wataa isagu receptor-kiisu ku biskeysan yahay receptor-ka markuu arko buu liganku ku dhagayaa oo ashyayaha wixii jirka galay uu noqonay. Haddaynu ka socono inta yareen ka socon waxaad ogaataa lagu yiri habka loo yaqaan receptor mediated endocytosis faa'iido khasaare uu leeyahay wax kasta faa'iido khasaare ka fiirso marka haddii faa'iidadiisu ay sida hore tahay soo sheegnay khasaarihiisu wuxuu noqon karaa lagu waxa ka soo qayb galay waxa ka soo kala jirkeena xanuunada ay kamid yihiin HIV/AIDS oo kale mechanism-ka ay ku soo kala receptor mediated endocytosis iyagoo receptor soo eeganaya xanuunadaasna way ku soo galaan jirka inaad sii ogaato weyn marka hadda cashirkeena iska bilaaban doonaa maanta. Haddaynu soo aragnay receptor mediated endocytosis soo qeexnay waxay noogu xigtaa steps buu leeyahay receptor mediated endocytosis-ka receptor-kaas ayaynu mid kasta gudaha u geli doonaa receptor-ka ayaynu mid kasta sheegi doonaa steps-kiisa. Waxa lagu yiri steps fara badan buu leeyahay receptor-ka xabadda ugu horeysa waxay noqonaysaa ligankeena soo sheegnay ama ashyaayada yar ee ku dhageysa receptor-ka ayaa wareynta isqabsanaysa lagu yiri waa habkii jirka ku soo galaysa waxaasi liganka yar iyo receptor-ka markay isqabsadaan way isku dhagayaan liganka yar receptor-kaasi iyagoo oo la xiriiraya waxyaabo kale oo intracellular gudaha salka yaala borotiina gudaha salka yaala ayaa ku biiraya sida calcium iyo adaptor proteins ayaa ku biiraya qolooyinkaas ku biiraya marka ay qolooyinka ku biiraan waliba tan loo yaqaan calcium protein taasi waxay soconaysaa invagination macnaha si hoose u waxaynaysaa meel yar wax yar u gudan oo kale ay sameynaysaa gudaha u galaysa cell brain-ka complex sababta waxay haysataa lagu yiri waxa ay hoos u gudaysaa waxa haysataa complex ligan iyo receptor-kii ligankii baa haysta sababta ay calcium protein tan u shaqeynaysaa lagu yiri markii gudaha loo soo geliyo meeshii calcium protein oo extracellular intracellular taali ligankii receptor-kii soo qabanaysa calcium protein tani markay soo qabato haddana another protein kale loo yaqaan qoto afraad dyne loo yaqaan waxa ay cause laba goor baan soo celiyaan filaya cause waxay sababaysaa lagu yiri constrictor qaab wareeg oo kale oo ay kala sabaysaa iyadoo qaybta hore ay ka dhigaysaa lagu yiri constriction ring qaybta hore iska soo ururaysa lagu yiri constriction inta isku soo ururta lagu yiri ay sameeysaa lagu yiri qayb yar wareeg yar oo ay sameeysaa lagu yiri dabadeedna lagu yiri liganka iyo receptor-kaasi iyo calcium-tii dhex waday sameynaysa invagination ka saarahayd waxa lagu yiri waxay hoos u galayaan bulgurseed solka
haye maxaa xigaya baa lagu yiri qodobka lixaad sii soconay waxa xigaya baa lagu yiri marka ay soo gasho kalatriin protein taasi transport cell membrane-ka ugu soo transport garowaysa baa lagu yiri mataqaanay kalatriin taas iyo mataqaanay marka ay sameeyaan liganka ay receptor-kaas ku soo dhigay qodobka 7aad bal han eegno qodobka 7aad wuxuu leeyahay ligankii receptor-kii waxa ay isku dhigayaan bal iyagoo sameynaya endosomal fasciculus macnaha gudaha salka mataqaanaa ka dhex sameynaya fasciculus kiishash ka sameynaya iyagoo transport garoobaya endosomal lysosome wax burburiyo macnaha oo receptor-kii wixii dhan bay mataqaanaa soo qaadso markay meeshii imato haddaba waxa lagu sameeyaa baa lagu yiri in mataqaanaa wixii lysosome lagu siday macnaha la burburiyo lysosome-kaasi markuu buriyo baa lagu yiri degraded buu ku sameeyaa waxaana la soo sideenayaa cytosol-ka lagu dhex sideenayaa si wixii faa'iideyso loo qabto ama hadduu faa'iido mataqaanaa xun lahaa dibadda salka lagu saariyaa haddii kan la faa'iideyso salka lagu dhex mataqaanaa biilsiin lagu isagoo transport garoobaya cell membrane-ka okay qodobkan mataqaanaa isagana wuxuu noqonayaa 9aad ugu dambeeyay ama waxa lagu yiri ligan maybe with other fasciculus transport waa kan nishigay wuxuu noqon karaa baa lagu yiri mataqaanaa aan habka labadeeda bahalood isku dhigay liganka ay receptor-ka isku dhigay inay giishash noqdaan oo lagu transport garoobay salka haddii wax faa'iido oo hayn haddii wax khasaaro hayaan badibada loo saaraya haddii kale faa'iido hayaana wasan hore usoo sheegnay mataqaanaa salka raacayaan sida ayay mataqaanaa kula falgalayaan gudaha salka wixii faa'iidada laga reebanaya sagaalka qodob oo steed qodob ugu muhiimsan mataqaanaa receptor mediated endocytosis markaynu ka hadlayno haddaba haddii aynu soo fahmaynin bal in la socotaan filaya cashirka waxaan bal soo qaadan doonaa sawirkaasna si fiican insha Allah kala fahmi doonaa haddaba sawirkaan isla eegno sawirkaan muxuu ka hadlayaa qodobkeenii noogu horeeyay dad xawsato 9 qodob ama 9 qodob aan soo qaadano ligankii wakaalka fasciculus-ka waa ka baaladalkiis gaaraba aan weeyaan mataqaanaa ligankii soo soconaya receptor-kii ku dhagaya gudaha salka dibadda salku marka receptor-kii yaala Soomaa dibadda salku yaala wakaalkaas inaad la socoto ma filaya receptor ligan complex meesha ku qoran tahay receptor-kaas ay ku dhagayaan mataqaanaa ligan receptor-ka way isku dhagayaan oo naga lahayn iyagoo mataqaanaa transport garoobay way soconayaan bal laha waxa kalatriin protein-kii baa coat sameynaysa waxa kalatriin protein baa coat macnaha invagination meesha qayb hoose gudaha ay mataqaanaa u sameynaysa baa lagu yiri complex ligan receptor-kii baa soo tilmaamin kadib markay inta sameeyay lagu yiri way sii soconaysaa mid kale isagoo loo yaqaan glutamine loo yaqaan protein kale isagoo glutamine loo yaqaan ayaa sameynaya concentrated ring oo soo sheegnay macnaha mid wareegsan buu sameynaya oo naga lahayn oo isku dhigsan kadib marka uu sameeyo mataqaanaa concentrated ring-ga marka uu sameeyo mataqaanaa keen soo sheegaynay oo ahaa protein ka dayanin aha uu ku qoran yahay filaya halkaas si fiican dad warkayso kulli dayanin oo taayir asasanka gaharaha ka marsan dayanin ku qoran tahay markuu ka sameeyo lagu yiri invagination ma hoosta ugu sameeyo lagu yiri qodobkeena shanaad inagu xiga maxaa kadib ligankii receptor-kii iyo kalatriintii mataqaanaa gudaha iyo salka u sii galayaan ka wada aragtaa ma filaya ay hore u wada galeen causil fasciculus fasciculus bay sameeyaan mataqaanaa waa ka ligankii receptor-kii xidhan isku siitay gudaha u sii galayaan okay markii gudaha sii wada galaan hadaba qodobkeena lixaad maxaa kalatriinta ay waxa protein ay waxa lagu yiri u transport garoobay salka iyagoo protein oo mataqaanaa protein ka saacidayaan bal lagu yiri salka u transport garoobay meelaha salka si wuxuu ku qabilnaayeen okay qodobkeenii mataqaanaa 7aad muxuu ahaa ligankii baa lagu yiri receptor-kii wuxuu noqonayaa endosomal buu noqonayaa endosomal oo ka habku u transport garoobay oo ka bay heedan filaya adarkiitan halkaabka casmarku ahaa uu soo soconayay labadeer xariiqa leemasha dhaadheer waa kalatriin protein uu transport garoobay salka meelaha kala guduun buu tagay salka wakaas qaybtii kalena waa taa mataqaanaa endosome okay halka markuu marayo kaare taa dheer hadama waa teera gaaban oo daayar gaan markuu marayo aan soo sheegay Allahu musta'an oo soconaya baa lagu yiri Soomaa okay qodobkeenii 7aad muxuu ahaa hadaba qodobkeenii 7aad si fiican ugu xani endosome waxa ku dhacaya lagu yiri mataqaanaa lysosome burburinaya lagu yiri lysosome-ka markay burburiyo waxa lagu sideenayaa salka si mataqaanaa wixii faa'iido looga qabto ka halkaas la filayaa u dambayso halkaare maxaa lagu tilmaamaa nashqada basali waxay noqonaysaa adoo nashqada yare oo binki qaybta hore
waad arkaysaan filayaa lysosomkaas degradation sameynaya selka looga kala faafinaya ama ya haddii kalena halkaa marka la joogay early endosomka haddii waxaan jirka ahaayeen trancytos waa la sii deynayaa baa lagu yidhi. Okay, sagaalkii hab wixii aynu ka soo hadlaynay sideedii haba halkaas ay ku kala egtahay si fiican u kala muuqata. haddaynu kasii soconno mataqaanaa habka aynu soo tilmaamnay receptor mediated endocytosis waxaynu geli doonaa habkii labaad ee mataqaanaa ay ahaa exocytosis. markaan joognay mataqaanaa bodies transport waana saddex kala qaybin jirnay exocytosis, endocytosis iyo trancytosis soo ma. marka exocytosis kiini labaadna waa kan hadda kii weynayo. intii aan kasoo doodayno oo dhan wixii aan soo wadno oo dhan wuxuu noqonayay endocytosis ma intaasoo dhan inoogu sii kala bixayay oo intaasoo ku dhan sii kala noqonaya. Okay, kii labaad haddaynu ogolno habkii labaad waa is a transport substance outside the cell. haddaad exo maqashaan waa habka ay uga transport garoobaan salka ama salka waxooga baxaan ugu horeyn substance ku baa lagu yiri way ka transport garoobaya ama way ka soconaya salka iyagoo ku dhagaya lagu yiri qaybo ka mid ah gudaha ayay ku dhagayaan markay transport garoobaan markay gudahaas qaybo ka mid ah gudaha ku dhagayaan gudaha markay meesha ku dhagaan waxay fududaan si dibadda uga bixi laayeen. markuu salkii gudaha halkaas ugu dambeeyay lagu yiri for information director bor specimen baa lagu yiri. haddaba mataqaan exocytosis markay waxaan dhacaysa baa lagu yiri waxaa la sameeyaa boris ama kiish ama wax yaroodu gobadaas ayaa salka mataqaanaa ay sameynaysa baa lagu yiri. mataqaanaa waxaa lagu tilmaamayo ugu dambeyn boriskaas wuxuu sameynayaa constrictor rig habka sawirkan daan hayaba sawirka adarka taama filayaa akhtarka yar ama waxa yar buleega oo eegi waa wixii mataqaanaa sameeyay boriska ama wixii sameeyay adarkiisin particles yar halka laba yar oo cadad dadkaysan labada waxaa aan dhex noqonaya wixii mataqaanaa habkii exo baa la yiri soo ma wixii habkii jirka looga saariyo noqonaya halkaas. ugu dambeyntii waa lagu yiri waxaa sameeyay constrictor ring iyadoo ay kasoo transport garoobaya ama ay ka soconaya substance oo saartay sel gudaha salka iyo ka baxaya mataqaanaa exocytosis. marka inaga maxay muhiimsan inuu ogaano exocytosis inay tahay habka ay jirka uga baxaan. Okay, haddaynu kasii soconno exocytosis ki leukolysis waka sidoo kale u muuqanaya adaragtaa ma filayaa inaad taqaanay markuu sameynayo habkani exocytosis marka laga hadlayo exocytosis markaynu ka hadlayno anaga laan kiish yar baa goreynta sameysmaya kiishka yar baa mataqaanaa noqonaya inuu kasoo baxa meeshii uu kasoo sii deyso soo ma. haddaynu kusoo ceshano si fiican u kala aragno digaas si fiican u kaas kiishkira waa soo soconaya si ku dhagaya baa lagu yiri isna ibrahim gudihiisa dabeetana uu fududeynaya say u fudaato salkii wuxuu ka baxay. marka aad waxaad ogaataa inuu kiish soo qaaday sabab waka habkii mataqaanaa ama habkan loo isticmaalo mataqaanaa exocytosis marka la joogo phagocytosis la sameeyo exocytosis inuu dhaco waa muhiim sababtoo marka bakteeriyada la laayo qashinkeeda la soo daadinaya kan mataqaanaa qofkan aad aragtaan qofkan oo kale ka tusaale ahaan qof maanta mataqaanaa ay ku dhacdo kale pneumonia ay ku dhacdo kale ama January ku dhaco kale ama TB waxaas kale ku dhacday markuu qofku qufaco kale wuxuu soo tufay sputum ama qaax soo tufay soma kaaxadaasi waxay noqonaysaa waxday adigu wixii mataqaanaa bakteeriyada la laayay ama wixii immunity salka wixii ku dhaawacmay wixii dhan soo saaray soma marka hab exocytosis lagu saaray ina sababto muhiim ah. haddaynu kasii soconno waxaan galnaa qodobkii ugu dambeeya labaad ee loo yaqaano trancytosis oo ahaa qodobkii labaad ee boris transport. Okay, trancytosis muxuu noqon doonaa. trancytosis waa transport substance from inside and outside then outside to inside. waa habka ay jid wax soo galaan ugana baxaan usoo galaan haddana ugana baxayaan haddana haddaba habkaas muxuu noqon doonaa. badanaa waxa uu kala xiriiray buuri habkan maternal circulation fetal during pregnancy markay hooyada uurka leedahay saasku dogsoonay ilmo yar baa ku dhaxnool soma marka ilmaha yar ee ku dhaxnool amniotic fluid ka yar tan tusaale soo qaadano kale biyahaas uu cabaya una sii deynaya ilmaha yar ee ku dhex jira mataqaanaa hooyada caloosheeda ama uur ku dhex jira pregnancy ay tahay hooyadu waxay sameynaysaa mataqaanaa hooyadaasi ilmihi yar ay ku dhex jira wuxuu sameynayaa biyahaas Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu talagalay inuu ku dhex jiro ilmaha yar ayaa biyahaas u cabaya una ka baxaya ama tusaale ahaan markaan ku hadlayno placenta ku dhajisan ilmaha yar hooy mataqaanaa ku dhajisan xundurtiisa amba umbilicalkiisa ku dhajisan
oo mataqaanaa cuntada uga soconaysa halkaas oo ma hooyadu waxay cunto oo kale mataqaanaa loo yareynayo intii ku filan oo kale in ku filan mataqaanaa ayaa u galaya soo ma marka intaa ku filan oo u gashay dibadana uu soo celinaya ilmiha ama mataqaanaa uu sii deynaya soo ma si loogu daro qashinka habkaas ayaa transitos loo odhanayaa haddaynu ka soconno summarize waa habkii noogu dambeeyay mataqaanaa aynu kusoo summarize gareyn doono summarize maxay noqon doontaa summarize haddaba waa fasically habkii aynu soo dhiganaynay intii cashiraantii noogu dambeysay ama waa cashirkeeni saddexaad in kulley ka dhiganaa filaya fasically transport divide waxaa loo kala qaybiyaa 3 transport oo u kala qaybin doonay u kala qaybin jirnay exocytosis iyo endocytosis oo u kala qaybin jirnay iyo transcytosis oo naga soo qaadanay exocytosis waa processkaas baan doonaa jirka ay mataqaanaa ay wax uga baxaan endocytosis waa habka jirka wax u galaan inagoo mid kasta mataqaanaa markaas habkan kulley waxaan ugu talagalay cashiraan soo soconayay inaynu kusoo yara summarize gareyno ama aynu kusoo khatino exocytosis oo naga soo qaadanay iyo endocytosis exocytosis oo naga lahayn habka selka wax uga baxaan endocytosis habka ay selka mataqaanaa usoo integrate wax soo galaan endocytosis oo naga u sir kala qaybinayni mataqaanaa saddex u sir kala qaybinay phagocytosis, pinocytosis iyo receptor mediated endocytosis mid kasta waa naga gudaha usii galnay phagocytosis oo sii kala qaybinayni maahayn mid kasta waa naga gudaha usii kala galnay transcytosis halka one bay iga dhacday number 3 buu noqonayaa marka isagu transcytosis habkii mataqaanaa ay usoo transfer garoobayaan inaan cell ay gudaha wuxuu soo gelin dibadda hadana wuxuu ka bixiyaan tusaale ahaan imikadan soo qaadayna filaya mataqaanaa maternal circulation-ka ama mataqaanaa hooyada iyo ilmaha yar dhiigooda intaas weeyaan mataqaanaa summarize-keena ama cashiraanteeni toddobaadkan inuu soo socday 3 cashir buu noqdaa filaya fascicular transport ama bariskaasi hadaynu ka soconno thank you aad u mahadsantihiin waxay naga dhamaaday halkaas inaga dhan chapterkii labaad ee isu sheeg cytology-gaas insha Allah dee cashiraanteena dambe baan isku soo noqon doonaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.